dhacdadan fajaciya ama kaaga gelisay bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka dhacday magaalada Hargeysa mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa oo ka tirsan degmada Axmed Dhagax ayaa dhawaan waxa isku aroosay lamaane wiil iyo gabadh ah waxaana wiilka arooska cusub galay uu ka shaqeynay mid ka mid ah warshadaha kala duwan ee soo saaray roodhida la cuno waxa uu wiilkaasi shaqada tagi jiray xilli hore oo aroortiya isagoo kici jiray 5 subaxnimo haddaba arooskan cusub ayaa markii ay wada noolaayeen muddo ku dhow ilaa 7 cisho ayaa wiilkii gabadha qabay maalin uu ka joogay shaqadii kadib markii uu ka cawday xanuun waxa maalintaasi badankeedii uu ku qaatay gurigiisa oo ay ku wehelinayeen ooridiisa cusub iyo gabadh u ahayd mixiisad aroosada cusub oo sidii dhaqanka iyo caadada arooska Soomaalida u ahayd si ay u toddoba bixiso saaxiibadeeda arooska ula joogtay ninkan guriga lahaa ayaan indha saarin gabadhan ooridiisa waa mixiisada oo xijaab iyo niqaam ku labisan jirtay inta uu guriga joogo haddaba maalintaasi uu shaqada ka joogay ninkani oo Ilaahay wax kale ka tusay ayaa waxa uu maqlay gelinkii dambe ee maalintaasi cod ku sheekaysanay qol kale oo aan ahayn kii uu ku jiray codkaasi uu maqlay waxa uu ka duwanaa codkii dumarka ama haweenka waxaanu fahmay in guriga uu ku jiro qof rag ah isagoo u yeedhay ooridiisii cusbeed ee uu qabay waxaanu weydiiyay qofka la joogay ee la hadlayay ee uu fahmay inuu yahay cod rag waxaana gabadhii ugu jawaabtay waa aniga iyo Heblaayo oo ah mixiisadii guriga ku noolayd muddadaan arooska ahayn kadib markii uu ninkii arooska ku qanci waayay jawaabta ay siisay gabadhiisu waxa uu baxay dibadda isagoo tagay saldhiggii ugu dhawaa taliyihii saldhigaasi uu tagay ayaa waxa uu ku soo daray 2 askari oo u soo raacay gurigiisa markii ay yimaadeen askartii gurigii ayay ugu yimaadeen labadii qof waa aafadiisii iyo gabadhii uu mixiisada ahayd askartii waxay niqaamkii iyo xijaabkii ka tuureen gabadhii mixiisada ahayd mise waxaaba kaga soo baxay qof rag ah fajaciya ama kaag ayay ku noqotay ciidankii iyo ninkii guriga lahaa kadib waxay labadii qof u kaxeeyeen saldhiga dhacdadan oo badiba ka yaabisay dadka inta maqashay ayaa la filayaa in maalinta berri la keeno ninkaasi iyo gabadhaasi toddobaadka isku mixiiska ah ee ku noolaa guriga caruusada cusub waxaana warar xogaal oo aanu helayno sheegayaan in markii booliiska Soomaaliland ay weydiiyeen aroosadaasi sababta ay ninkan ugu qarisay saygeeda cusub ee ugu labisay dharka dumarka waxa ay u sheegtay ciidamada booliiska in uu ninkaas hore ay isjeclaayeen ciidamada booliiska Soomaaliland oo baaritaano dheer toddobaadkii u dambeeyay ku waday dhacdadan cusub ee magaalada Hargeysa dadkii ka yaabisay ayaa waxay dadku aad u sugayaan waxa ka soo bixi doona go'aanka maxkamadda gursaday gabadha la Amina gursaday markii aan gursaday kadib sanaain wala soo wareegay markii la soo wareegay guriga la soo wareegay reerka la soo wareegay ayay soo raacay intaas gabadhaas markii hore la socon jirtay markii inta la socon jirtay ana gursaday la socon jirtay ayaa markii dambe soo raacday kadib 20 cisho ee guriga uga noolay kadib dabeetana iyadoo gabadh ay uga noolay guriga iyo xaafadda ku noolay markasta way naqaameen ma naqaameen naqaabku markii meelaha u baxay bixin jirtay laakiin waxay xidhan jirtay dharkii dumarka iyo labisi shisheeye roob burasha in qalin sunna in labisii dibna wax walba mirsan jirtay wixii dumarka waslaan oo mirsan jirtay dabeetana ma dareemin xaafaddiina ma dareemin marka gabadhan iyada isku wadatay marka hore magaranaysa oo guriga ku wada noolayeen balaydi saamkan markii dambe la xaqiijinayo guriga ku wada noolayeen oo ay u shaqeyn jirtay gabadhan xaafaddan inay ka yar u shaqeyn jirtay dabeetana sidaasay guriga ku yimaadeen marka kadibna 20 cisho markay guriga noolayd ay galabta dambe iga tagtay markay iga tagtay dabeeto hooyadii oo doonaysa ayaa timi gurigii markay timi ay xaafaddii weydiisay amina ma inankii Cabdiraxmaan kula joogay marka xaafaddii maqlaysay ma tiri Cabdiraxmaan lamu joogin waxa la joogtay inan la yiraahdo asma dabeeto saasay ku fashilan tawaarintii iyaga fashiliyay markii ma anagu waxaan ogaanin marka maxkamadda saldhiga iftiima ku xidhnay inankii iyo gabadhiiba baa doontay markii saa ay hooyadii tiri ma ahayn gabadha inankeygii baa habay timi markii ay ka tiri gabadhii iyo gabar kale walaaliino guriga tiliga soo wareejiyay ayaan xidhnay oo guriga intaan ugu yeedhay guriga keenay ayaan arrintaas dhacday dabeetana arrinta ka warrama waan arrintaas u jirtaayo ninkaas waxaan inaan muhayn marka xaafaddii baa ku kacday oo tiri maxaa dal orin inuu qarinaysan ayaa habliyo ila saxan jirtay ayaa xanaaqay oo meeshii maxaa dal lagu qarinay isla markaas aan ku xidhnay saldhiga ku geeyay markaan saldhiga geeyay labadoodii walaalaha ayaan ninkiina keena marka wixii iyaga keeno markii dambe naloo keenay isagoo nin caadi ah oo dharkii rag xirma ayaa saldhiga la keenaa waxa shakiniga ma gelin macal xaafaddu dawi dareemay wax dareemay idu waxaan waa nin damana aniga la cadeeyay reerkood baa cadeeyay fili anagu ma dareemin waxa ma dareemin inanu banaysan gabadha internet kursana ka hor marka waxaan la sheekay jiray inaan qofkan kan isbedelay ayaan hore la sheekay jiray marka wuxuu diyaar ma yahay inaan noo shaqeysa ayaan baraya
markaas dartii inuu baraysan haye markii uu barayna inantan walaalay bay la soo hadashay telefoon miisniyo marka waxay tidin inaga Cabdiraxmaan maadiga ayo maanta kulaha inanta iyada aan ma sheegaysan waxa inantii naga la tiriyay baleeyay noo kaalayo de xabal tigini Cabdiraxmaan oo inanta kaalay ka xis waxay u soo fadhiisay si caadi desadir si taatan ku kale markaas taatan in gabadha ku gursin xakabada iyo saldhigga si wanaagsan loo shaqeeyeen marka waxaan ka codsanaynaa culimada diinta iyo wasaaradda diinta iyo waqafta iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka islaamka inay naga caawiyaan oo arinta nala eegaan oo soo garab taagaan oo noogu yimaadaan inta dhicista maaha waxaan ugu dhacay dhibaato xoog leh baan ugu dhacday reer dhanoo burburay guurkii khasaaroobay iyo reerkii iyo wixii magaaladaas oo dhan baan ugu dhacay dhibaatooyin baan ugu dhacday marka in lala eego arinta la yimaado wasaaradda diinta iyo waqafta iyo culimada diinta iyo odayaasha dhaqanka nala eegaan dadka islaamka oo dhan waxa kala kulmeen inta guriga ma joogin roodi baan qaadis magaalada maalintii oo maqan jiray habeenkii horodhan كوبيت مكان عينين ما نمشي مركا إن يلوس كتكتب وحفظي أنجي تكتري أيام نمشي مكاننا مركا ده إن أكاسم ده أكو بيلين شلون ده أكو هاي لبده إن كان ناقص سطده إن ما لكو بيلين يأكو يلاني إن ده وشغلي إن واحد كده ده واحد يكلف إن ما ده إن واحد يكلف يشتري أنا بحول يشتري مركا هربا إن شكله مركا هربا وان سنة سمعت إنه يقولي يشوفني بقى أن عين كنا نقوم نشتري مركا تيجي يقولي لا تشوفني ما حنا لا يمادين دي اللي بقف صوتهم بقى مركا هربا حاجة يسوي حاجة نسوي إن لما يسوي إن نوي مادين لكن محمد لما يحسسن وأنا ولا سنوما إذا سي عادي نوما يمن سلقي مادين وحي يكون نقول إلى عندك كين عددين يغير كين واحد عددين ما كان لنا سير نوما حد قفك وتها أي حي إنك لبضان إنك إنك تاي صوتها عين أي نقدين ما كان غير كذا نوما يمن نوما نسبة فريسن ما كان وحنا ورق نبضين مع غير كل كوجين مكانس حافظين يحمد يسكو جين أنا كورنا كساتن ملين إن وين لسه بعرف لسه وصل ديلي حتى كلا بدي يشتري واحد يشتري معي. وقت عبد الرحمن مركي اللي ويدي من كان قبل يسكو بالدليل اللي يري مركي محكمة اللي جاي محاوى عن كوك اللي فيه كوك ضاع. إن أرسل إن وحي ولا يمرك ليه وحاصل مثل أرسلي وحي كوك اللي فيلم ويديني أنا لما عضين لكن مرك ليه وحاصل مثلا منها وحول بها بيلي وواحد ده وغيراني واحد غيرال وإلى محكمة إلى سليق وحول وغيرال. إن مركها إن وحي كوك اللي فيه ده لكن يقول حيان أباه يبدي يتريو أنا مكناش جابينا كنا نشوفنا ده قبل الجلسة شوكتي ده أنا كنت أنا لتشوكتش دوري تمن يعني أنا نبانو أركيني أنا ياري أنا نبانو أركيني ولا شيء عاوني سوي لتشوكت ما كان أنت كل ولا أنا حدا أنت يا فريد نك كاقان أنت أسمع أنا مناي إن أنت أسمع إصلاف إنك كاقان والله فريد يا إصلاف حتريل بنا يا بويد بعترين تيسكولكو فسح وجاري إلى إنه أكون نرى تدعي إن أنت عصادرني ما كساتنا دمما الناس شو دينه واسكامسنا marka halkan dariiqa noo maraysa inay yaro waxaan moodayno si fiican reerka u shaqeynayso nin khayr kulka dharka jirka meedhanaya biyaha guriga u dhigi jirtay suuliga u dhigi jirtay tiisumay maamul jirtay maamul jirtayba ninkan inta rasmiga ninkan noqotay ayaa maamul jirtay reerka saliida madaxa la marsaday haday tahay inay u keen jirtay kolaas oran jiray amana in qoyan baa tahay anagu dawan ka xishoon jiro inanka seediga waa laga xishooday inantaada qureecda u gaado ninka ku qaba oo inanka hoos dirina ka jooji waxan noo ma oran jiray waa amistin iyaga is ogaana waxan wuxuu yahay هذا الكلام كين سيرين مرمر بهالقاسم نحن نسجل معاني الله وحنا نسجل نعمنا الله عدوينه وكان نحن ولا مقام كذا طرق الله نسجل وكان نحن بلا عدك وين مركز أولين سيرين سنكيو ما حيصفي لا ذا عدوين بعد تاني كولين سيرين عدك ده دي بدو بتشتي طبعا عدك ده يرد رمينا لا ماش عدك وين ما حيطلع وحنا ويردو بتشتي عدك مركز إن الطير إنه يروح ما يسد في عنو توبر في عن سيم المسجد والله وإن المركي اللي يدان محقات كوار كان أركوت سجادي والله ما تنا أسمع ما كنت ما تنا أسمع marka waxba la isbarbarin jirtay miyaa iskama qaadin baamti iyo qasilka kol wajigeeda ma dhimi jirin hadda in yaro 5 mir may maqnaantin wajigeedani booban bas ma saantay waxaan habluus mariyaan inta qasilka da waxa habluus mariyaan bismirin jirto naasay roobush isku sameysay guud yaro dhimatay man dheer isku sameysay leena yaro si fiican oo tababartay iska leedahay biyaabsan baahan jirtay walaalo oo ma sha Allah إن الصف عنه إذا طبرت من المسجد وأنا أنت آمناي إن طير فريد أنت لقى فرست كهذا آمناي من يرى آمناي إن طير فريد ده وحنا كياويلك عبدي إن كاقات أظن يرى أبوه بتاعهم كل إن أنت فريد ده سامنكم معمول يصير شركة ما يقول لك سبيه وكل قناة يو سريد يقول لك يصير هذا السنة إذا وكاقات أنت